kulantii wacan oo wanaagsan idin lahaantiinba kusoo dhawaada mar labaad iyo muuqaal cusub haddaba muuqaalada aanu daahaydi ka qaadi doona waxa kamid ah Khadra Silimo oo fadhigooga kacday labada lamaane ee cusub ee meherkoodu ka dhacay magaalada Minnesota lamaanahan ayaa noqday lamaanihii ugu hadalhaynta badnaa maalmihii la soo dhaafay baraha bulshada sidoo kale Khadra Silimo oo wacad ku martay balana ku qaaday inay u qaadi doonto hees labada lamaane haddaba si aad uga bogato daawade barnaamijkan iyo barnaamijyo lamid ah waxaanu si sharaf leh kaaga codsanaynaa inaad subscribe noo saarto gambaleelkana aad furato si video kasta aan soo gelinaa ku soo gaadho takalana waxaan maqlay Soomaalidu like kuma saarta ma garanaysaa videogan like saara waxaan rabaa inaad videogan like saartiin inay lacag laga ma qaadaye like iska saar ha adaa kula hadlaya adiga nimikay daawanaya inaan waalaad muusa laakiin ma wali fanaanada caanka ee reer Hargeysa Khadra Silimo ayaa si farxad leh u muujisay hambaliyada ay u dirayso labada lamaane ee meherkoodu ka dhacay magaalada Minnesota haddaba waa tan iyadoo barteeda Facebook iyo barteeda Snapchat-ka ku daabacday hambaliyada ay u dirayso labada fanaan waxa ay tiri hambaliyo meher farxad badan waxaan hambaliyo hawada u marinayaa labada fanaan ee ugu qaaliga ah Maxamed Alta iyo King Jamac Alfa Mubarak gurigina lagu farax gacaliya sukeeyaba haddaba waxa ay intaasi raacisay fanaanadu dhawaan waxaan idin soo qaadi doonaa hees aan idinku la wadaagayo dareenkiina farxadeed haddaba fanaanada ayaa wacad ku martay inay hees ka qaadi doonto goobta farxadaasi lagu wadaagayo ee ah xalfada ay dhigan doonaan haddaba dunida waxa maanta khalkhal weyn geliyay caabuqa coronavirus kaasi oo laga baqi doono xalfadan inuu joojiyo ama baajiyo haddaba waxa wararka soo gaadhay ay sheegayaan in xalfadan ay qabanqaaminayaan qolo cadaana kadibna xalfadan lagu dhigi doono qayb online sidoo kale xalfadan oo baraha internetka leef looga wada daaban doono haddaba wixii wararka intaasi ku soo kordha Maxamed Alta iyo guurkooda sidoo kale Maxamed Alta iyo King Jamac guurkooda wixii ku soo kordha halkan ayaad nagala socon doontaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh